ugu dambeyn liibaan shuluq ayaa ka degay magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud kadib shaqaaqa kooban iyo is-hortaag ay sameeyeen maleeshiyaad ka soo jeeda magaaladaasi Cadaado. maleeshiyaad hubeysan oo Cadaade ka soo jeeda ayaa galinkii hore saakay wufuud hordhac ahayd oo u badan dhalinyaro TikTokers ah oo ay ku jirto gabar caan ka ah barta TikTok ay weerar ku qaadeen iyagoo markaasi ka soo horjeeda in gabi ahaanba liibaan shuluq uu soo gaaro magaalada Cadaado. waxaa ka dhashay khasaaro markaasi dhaawac ah oo gaaraya ilaa 4 qof. sidoo kalena waxa ay sameeyeen in kontaroolkii magaalada Cadaade laga soo galayay ay xirtaan oo ay jartaan ayna yiraahdaan ma jirto cid soo mari karta iyo wax wafdi oo ka socda liibaan shuluq oo soo gaari kara magaalada Cadaado. balse waan ay sameeyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ugu dambeyntii keentay in magaalada Cadaado si toos ah loogu soo dhaweeyo wafdiga liibaan shuluq halkaasna ay khudbado ka jeediyaan kana bilaabaan ololahooda doorasho. balse waxa la filayn ayaa ah in goortii uu soo gaaray liibaan shuluq magaalada Cadaado ay gabi ahaanba intii ugu badnayd shacabkii Cadaado ay isugu soo baxeen iyagoo u sacdo tumaya soo dhaweynaya isla markaana dhageysanaya khudbadiisa. hadallada uu jeediyay waxa liibaan shuluq ka mid ahaa in haddii hoggaanka galmudug loo doorto in Cadaado ay noqon doonto magaalooyinka iyo degmooyinka ugu horumarsan ee maamulkaasi galmudug. wax walba oo ka soo kordha xaaladda galmudug iyo musharax liibaan shuluq wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan ee muuqaalka like saara siina share garee.